waxbarashada tacliinta sare iyadoo kaashanaysa agaasinka waxbarashada gobolka waxaan wadna waayadan sidii loo xaqabtiri lahaa baahiyaha waxbarasho degmada Daynile run ahaantii kuma ay maanin kaliya rabitaan oo la iska sii laakiin wuxuu ku timid macluumaad aan ka hayno iyo baahida meesha ka jirto waxaan ognahay 17 degmo ee gobolka Banaadir waxaad ogtihiin inaan diyaarino xogtii waxbarashada ardayda degmo walba baahida ka jirta gaar ahaan xagga helidaanka waxbarashada waxaan rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo in ay noqoto degmada Daynile in hadda maanta loo dhagax dhigay magaalada Sabtidana hadduu Ilaahay yiraahdo sida ay si lamid ah waxa la siin doonaa degmada Kaaran waxaan rabaa in iskuulkan ay idin sheego taariikhdiisa wuxuu ka mid yahay mashruuc mashaariicda ay ku deeqeen EU-da waa uga mahadcelinaynaa waxa fulinaysa hay'adda ADRA iyo agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir iyo wasaaradda waxbarashada insha Allah ta'ala maanta waa la dhagax dhigay waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo sida ugu dhaqsaha badan 3 bilood ilaa iyo ka yar inuu 4 bilood inuu soo dhameystirmo iskuulkan waxaan shardi ka dhignay inuu aad u weynaado maxaa yeelay iskuulada hadda aan dhisayno way ka doonaan iskuuladii hore waxaan rabnaa iskuul model inuu noqdo u dhameystiran dhammaan agabka loogu talagalay hadii ahaan lahayn xagga ciyaaraha hadii ahaan lahayn qalabka loogu talagalay hadii ahaan lahaayeen ma taqaanay iskuulada modelka oo casriga hadda wax lagu barto marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan uga mahadcelino degmada Daynile gaar ahaan Fanyara Foundation in ay ku deeqeen dhulkan waxayna tusaale u tahay dadka kale ee degan gobolka Banaadir inay ogaadaan dhulalka ay haystaan in ay ku deeqaan hantida dadweynaha ugu deeqaan maxaa yeelay marka u dambayso waxa ka faa'iideysana waa ubad Soomaaliyeed oo baahi u qaba qofka dhulkan bixiyana waxay u noqon doontaa sadaqa jaari ah waxaan rabnaa inaan annaga ka wasaarad ahaan arintaas aan boorino gudoomiyaha gobolkan waxaan ka rajaynaynaa inuu mar walba booriyo ummadda inay dhulalka bixiyaan waxa ugu qaalisan ee maanta halkan runtii waxay nagu qaadatay inaan dhulkan helno marka runta idin sheego ugu yaraan 8 bilood ka badan ay qaadatay marka ma rabno in marka mashruuc la soo helo ama gobolka wax ku deeqo in haddana dhulka ay mushkilad noqdo waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaan isugu imaano dhowr bilood kadib furitaanka dhulkan waxaan u mahadcelinaynaa gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka gaar ahaan Axmed Iimaan oo asagana aad igala shaqeeyay dhulkan loo heli lahaa Jacfar iyo foundationkii dhulka ku deeqay gudoomiye Umar waa og yahay runtii dadaalada waayadan u wada waxbarashada waa uga mahadcelinaynaa waana ka muuqataa runtii in sektarada uu xoog saaray gudoomiyaha ku jirto waxbarashada waxaan rajaynaynaa inuu inta ka sii badiyo maxaa yeelay waxa ugu muhiimsan uu ka tagi doono waa waxbarasho ubadkaas wax la baro gudoomiye Umar waxay noqon doontaa legacy-gaada ugu fiican waxaan kaloo dhan lama sheegi doono kii wax tartay ku kale laakiin ubadka wax barta ayaa taariikhda ku gali doona waa mahadsantiin iyo mas'uuliyiinta kale ee heer gobol heer degmo bale dhabaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaah bacdi salaam alxamdulillaah farxad ay noo tahay wasaaradda waxbarashada federaalka iyo agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir isla falgalkooda waxyaabihii faa'iidaha ahaa ee ugu horeeyay inay maanta ay bilowdaan runtii waxyaabo kale badan oo ka horeeyay way jireen laakiin waxaa bilow wanaagsan noo ah iskuulo oo aan ognahay baahida loo qabo iskuulada public ah ama danta guud ah magaalada Muqdisho iskuuladii dawladii hore oo dadku intaan aad uga baaxad yaraa waxa buuxiyay intiba nool dad ayaa dhigay ama ha ku hayaan amal kale ama nolol oo deegaan u noqoto ama ha noqoto meel si gaar ah waxbarasho loogu leeyahay goob waxbarasho si gaar ah loo leeyahay ha noqoto marka taasi waxay qasabtay goobo yar oo kira ah oo villooyin u badan in waxbarashadii la geeyo waxbarashadii nidaamiga ahayd ma lahan goobo mataqaana u diyaarsan oo macno laho badan ma leh oo ku filan dadka ama xataa ka agdhawaa karta baahidaas markii aan aragnay ayaa wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka Banaadir iskaashigoodu waxa u suura galay inay la kaashadaan hay'adaha baahidooda gudbiyaan jawaabtiina waxay noqotay dhowr iskuul
inay soo helaan dhismahooda oo midkaan kow ka yahay. kuwa kale ayaa jira oo dhismahooda gebagaba yihiin ama ay dhammaatay, laakiin iskaashiga labadan hay-adoodee gobolka iyo wasaaradda federaalka way ka horrayso wasaaradda iyo hay-ada kale ayaa isla fulinaya. mirahan bilowga ah waa wax ka dhashay iskaashiga labadaas hay-adood. waxaan rajaynaynaa marka sida ay u bilaabatay inay u socon doonto, maxaa yeelay dadka reer magaalka waxbartay mas-uuliyiinta ah ee uu ka mid yahay caa'ilada reer Qanyare ay ka mid yihiin, waxay heli karaan yani goobo dan guud ah oo ubadka Soomaaliyeed iyo koodaba wax lagu baro sida haddeertaanba muuqata. marka dadaalkan oo kale wuxuu xujo ku yahay dhammaan dadka reer Qanyare oo kale ah, maamulka Daynile oo kale ah, mataqaanaa baahida waxbarasho ay ka jirto lahna deegaano noocan oo kale. haddii marka ay keenaan dhinacooda ay ka dadaalaan oo goobo waxbarasho oo danguuda ay keenaan, annaguna waxaan keenaynaa yacni ciddii dhisi lahayd iyo dhismihii iyo maamulkii yacni dadkii tacliinta bixin lahaa. halkaas marka waxaa ka imaanaya biidnillaah isbeddel fiican oo xagga aqoonta ah. runtii magaalada Muqdisho gobolka Banaadir galalaasihii iyo rabshadihii isu dhiibay ayaa waxay sababeen hoos u dhac xagga tacliinta ah. inkastoo ay tahay magaaladii caasimadda ahayd iyo hooygii waxbarashada Soomaaliya, haddana ubadka hadda jooga waxaa laga dareemayaa hoos u dhac xagga tacliimeed. marka arrimahaas in laga soo kabto ayaan rajaynaynaa. goobo badan oo ku filan ubadka Soomaaliyeed ee waxbarasho inaan helno ayuu yahay hadafkeennaas buu kaluu bilow ka yahay. kuwa kalaa jira oo mar dhow aan dhagax dhigi doono haddii la idmo, oo ayagana broseskooda uu gebagaba yahay oo sidaanoo kale granted ah ama la bixiyey. marka meeshaan hadda waa meel bannaan oo deegaan weyn oo zaxmo ah kama muuqdo, laakiin waxaan ognahay kobaca magaalada Muqdisho iyo gobolkan Banaadir kobaciisa deegaameed ayaan ognahay. shaki igama jiro marka belayar kadib meeshaan inay noqon doonto deegaan. iskoolada oo dawladda waa ku yar yihiin degmadan, insha Allah kan waxaan u maleynaa hadda kii labaad iyo kii saddexaad oo hadda la dhax dhigay inay yihiin. horena waxa uga shaqeynayay laba iskool oo dawladdu ay leedahay. marka waxaan rajaynaynaa iskoolo badan intaas kuma filna in aad noo dhagax dhigi doontiin ama aad noo dhisi doontiin. waxay ka mid tahay fafaalada oo magaalada Muqdisho in meel aad arkaysaan oo door ah oo calagaroobi ku yaaliin inaan maaragtay maanta dhagax dhigayno oo aan iskuul weyn oo maaragta dugsi sare aan u dhagax dhigayno. waa ilaahay xamdigiis meelo badan aan soo dhagax dhignay. way soo doonaan shaqooyinka insha Allah dhismada iyo fafaalaha. waxaa arki doontaan insha Allah Daynile qurux badan iyo magaalada Muqdisho qurux badan. waana ku dadaalaynaa in wadooyinkan aan dhamaystirno. maantay waa maalin farxadeed, waa maalin reer Daynile ay u tahay maalin fiican oo loo dhagax dhigaa iskuul high school. degmadan waa degmooyinka waaweyn gobolka ka mid tahay. degmada baaxad weyn leedahay, dad badan oo Soomaaliyeed ku nool. caruurtooda waxaa laga yaabaa inay iskuullada u aadi jireen meelo fogfog. baahi weyn ka jirtay. baahidii maanta in la daboolay waa ilaahay mahadiis. waxaan uga mahad celinaynaa arrintaas wasaaradda waxbarashada iyo intii ka soo shaqaysay dhammaan. intaa kadib waxaan rabaa inaan si lamid ugu mahad celiyo saaxiibadii ku deeqay dhulka. halkan dhulka laga dhisaa maxaan ku waraay iskuulka waa dhul aad u weyn. meeshaan dawlad ogtiin dhulku waa qaali. sidaas darteed waxaa dhulka ku deeqay Qanyare Foundation.